السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتونا أقسام دولية شدة قيمة هي قدرين تي شرفتا نجمدان كسر الوضع وركنا الظهر ما إجاشان ودن يسمالي تيفي وعشان يتمنى كابيش جون سنة كولا بكون يكوبي لباتن قد بدأ وركا هذا ودون تنادي لها ودلوينا وقلادنا وحقيب إيكا الله نحرسته waxaa dhintay ilaa 10 kamid ah dhalinyarada doonaysay inay ku biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo dhaawac soo gaaray 20 kalena ku dhaawaceen oo ku sugnaa banaanka controlka laga galo xirada ciidanka ee General Dhaga Badne waxaana xaqiijiyay in 10 dhalinyarada ay dhinteen 20 kalena ay ku dhaawaceen taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa warbaahinta kula hadlay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ku sugan deegaanada Shabeellada Hoose ayaa guulo weyn ka sheegtay dagaal ay la galeen kooxda argagixisada Al-Shabaab isla markaana ay sheegeen inay ka qabsadeen deegaano badan oo ka tirsan deegaanada Jubbooyinka Hoose magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa lagu qabtay 9 haween ah iyo sidoo kale 2 nin oo la sheegay inay ka ganacsadaan jirka bini'aadanka isla markaana waxaa lagu qabtay iyagoo dad badan oo afduuba ka dhoofinayay dekedda magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya qodobada iyo kuwa kale ayaa faahfaahintoona haddii Allah awood leh fadlan haddii aad uga soo kamid noqon saaxiibadana ugu xunaan shabakada wararka gaashaan wadani Soomaaliya TV adiga waqti shir garanaya comment ka bixinaya subscribe tana saaranaya waa hagaaga magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay 9 haween iyo sidoo kale 2 nin oo la sheegay inay ka ganacsanayaan dadka jirka bini'aadanka isla markaana wadamo badan oo kamid ah caalamka u dhoofin jiray dekedda magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa noqotay hoyga kaliya laga dhoofiyo dad afduubayaal ah la soo afduubtay isla markaana la geeyo wadamo badan ay kamid yihiin dalalkaasi waxaa kamid ah dalka Qatar iyo sidoo kale Sacuudiga oo muddooyinkii dambe la geeyay dad fara badan oo Soomaaliya isla markaana laga afduubanaya isla gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho wararkan ayaa si rasmi ah waxa loo ogaaday isla markaana la helay xog ku saabsan in dekedda Muqdisho ay tahay goobta kaliya ah ee laga dhoofiyo jirka bini'aadanka isla markaana la geeyo wadamo badan oo kamid yihiin Qatar iyo sidoo kale dalka Sacuudiga waxaana shabakadan la sheegay inay hogaaminayeen 9 haween iyo sidoo kale 2 nin isla markaana waxa u xaqiijiyay warbaahinta afayeenka ah ciidanka booliska Soomaaliya Doodisho warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay arintaasi si rasmi ah u jirtay isla markaana gacanta lagu hayo 9 haween iyo sidoo kale 2 nin oo lagu eedeemayo inay ka tirsan yihiin dadka jirkooda ka ganacsada isla markaana in muddaaba la baadi goob loogu jiray isla markaana ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u suurta gashay inay gacanta ay ku soo dhigaan afayeenka ciidanka dowladda federaalka afayeenka ciidanka booliska ee Soomaaliya ayaa sheegay Doodisho in gacanta lagu hayo 9 haweenka iyo sidoo kale 2 nin iyadoo lagu qabtay adduun lacagado aad u tiro badan sidoo kale waxa uu sheegay Doodisho afayeenka ciidanka booliska ee Soomaaliya in shabakadan ay muddooyinkii dambe baadi goob ballaaran loogu jiray sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay 9 haween oo lagu eedeynayo inay wadeen in dadka bini'aadanka ama dadka dhalinyarada ah jirkooda laga ganacsado isla markaana la geeyo wadamo badan oo kamid ah caalamka isla markaana halkaasi la rabo in jirkooda si rasmi ah lagu kala iibiyo waxaana shabakada in muddo suuqa Muqdisho ay ku jirtay isla markaana waxa haasan walaac xoogan ay soo galaysaa waalidiinta dhalinyarada Soomaaliyeed dhalay isla markaana cabsi weyn ka qaba maadaama Muqdisho lagu arkay shabakad weyn oo kala iibisa jirka bini'aadanka iyadoo la soo bandhigay 9 haween iyo sidoo kale 2 nin oo garab weyn ku siinaya in dekedda Muqdisho laga dhoofiyo dad la soo afduubtay isla markaana la geeyo wadamo badan oo kamid yihiin caalamka waxaana si rasmi ah loo sheegay dadkaasi si rasmi ah loo wareysan doono isla markaana wareysi gaar ah la yeelan doono ilaa haatan lamaha ammaanka ee Muqdisho kama aysan hadlin dhacdadaasi isla markaana waxa jirta in afayeenku faahfaahin ka bixiyay sababaha keenay xilligan gacanta lagu soo dhigo 9 haween waxaa la sheegay in sanadihii ugu dambeeyay ay suuqyo weyn ka furanayeen Muqdisho dadka ka ganacsada jirka bini'aadanka isla markaana si rasmi ah haatan loo soo ogaaday waxaana ciidanka booliska ee Soomaaliya ay sheegeen inay u suurta gashay inay 9 haweenka iyo sidoo kale 2 nin garab ku siinayay in dadka jirkooda laga ganacsado ay jiraan ay yihiin dadka dhalinyarada ah ee la afduubtay isla markaana waalidiintooda baadi goob weyn oo u galaan waxaa jirta in la qabtay 28 dhalinyaro ah oo afduubayaal ah isla markaana la saarayay markab u socday dalka Suudaan isla markaana la sheegay inay yihiin dad la rabay in kaliya iyo sidoo kala wadnaha iyo beerka badagala baxo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay suurtagal u noqotay inay gacanta ku soo dhigaan 9 kaasi ee haween isla markaana ilaa haatan lamaha ammaanka ee Muqdisho aysan wax rasmi ah aysan ka bixin sababta keentay in xilligan ee Muqdisho lagu arko suuqyo weyn lagu kala iibinayo jirka bini'aadanka
allaha u naxariistay waxaa dhintay 10 ka mid ah dhalinyaro doonaysay inay ku biiraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaana dhaawac soo gaaray 20 kale kuwaas oo ku sugnaa banaanka kantaroolka laga galo xirada ciidanka ee Jarnaal dhaga badne dhalinyarada ayaa ku sugnaa baaritaano ka hor inta aysan dhex galin qofta naftii huraha ah sidaasi waxa warbaahinta u xaqiijiyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jarnaal Odawa oo warbaahinta kula hadlay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamo fara badan oo ka tirsan Jubbaland oo muddooyinkii dambe hawlgalo ciidan oo ballaaran lagu baacsanayo cadawga Soomaaliyeedka ee loo yaqaan al-shabaabka ayaa lagu qabtay deegaano badan oo ka tirsan Shabeellada Hoose waxaana jirta in ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay gacanta ku soo dhigeen askar badan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isla markaana ay gacanta ku dhigeen rag badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab qaar kamid ah saraakiisha hogaaminaysa hawlgalkaasi lagu fulinayay in laga hortago kooxda argagixisada al-shabaab ee deegaanada Shabeellada Hoose ka dhacay ayaa gacanta lagu dhigay askar badan oo ka tirsan kooxda nabadiidka waxaana ciidamadu ay sheegeen in guulo weyn ka gaareen dagaalkaasi muddooyinkii dambe ka dhacay Shabeellada Hoose isla markaana halkaas ku soo qabteen qaar kamid ah horjoogayaal ka tirsan kooxda al-shabaab ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qabsaday deegaano badan oo ay gacanta ku hayeen kooxda al-shabaab isla markaana gacanta ku dhigay waxaana wararka rasmiga ah ee Kenya Shabeellada Hoose ay sheegayaan in haatan gabihaanba ay deegaano badan ay ku sugnaayeen kooxda nabadiidka al-shabaab isla markaana halkaasi ay ka wadeen qalqal amni darro iyo sidoo kale amni darro aad u weyn waxaana jirta in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay gacanta ku soo dhigeen rag badan oo ka tirsan kooxdaasi ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo heegan buuxa la galiyay si ay uga hortagaan wax kasta oo khalad gelinaya ammaanka deegaanada Jubbooyinka Hoose ayaa muddooyinkii dambe soo xilxaadsanayay baaritaanada lagu wado in la baacsado cadawgaasi waxaana jirta ciidamadu ay gacanta ku dhigeen hub fara badan oo ay leeyihiin kooxda al-shabaab iyo sidoo kale saraakiil fara badan oo ka tirsan kooxda nabadiidka ee al-shabaab ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan deegaanada Shabeellada Hoose ayaa sheegay inay guulo weyn ka gaareen dagaal muddooyinkii dambe ka socday deegaanada Shabeellada Hoose isla markaana halkaasi ay gacanta ku soo dhigeen askar fara badan oo ka tirsan kooxdaasi al-shabaab ciidamadan ayaa baaritaano waaweyn ka waday muddooyinkii dambe deegaano badan oo ka tirsan Shabeellada Hoose isla markaana ku bacsanayay saraakiil ka tirsan ciidankaasi al-shabaab isla markaana waxaa la sheegay in halkaas ay ku baabiyeen askar fara badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab isla markaana ay gacanta kaga dhigeen baabuur badan oo ah gaadiidka loo yaqaan dagaalka ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan Shabeellada Hoose ayaa muddooyinkii dambe si la xasanayay baaritaanada ay wadaan isla markaana lagu bacsanayo kooxda al-shabaab qaar kamid ah saraakiisha ciidamada horkacisay warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay in ay qabsadeen deegaano hor leh oo ka tirsan Shabeellada Hoose oo muddooyinkii dambe gacankaankooda ay lahaayeen kooxda argagixisada al-shabaab isla markaana waxay sheegeen saraakiishan in gacanta ku hayaan deegaano badan oo muddooyinkii dambe al-shabaab ay gacanta ku haysay gabihaanba ay kala wareegeen dagaalo muddooyinkii dambe ka dhacay deegaanada Shabeellada Hoose ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ku guuleystay in gacanta ay ku soo dhigaan deegaanadaasi isla markaana howlgaliyaha guutada koobaad hadda waxaan joognaa saaki baan ka soo howlgalnay hadda waxaan joognaa meesha la yiraahdo xarxarka oo u jirto Buulxaaji 8 kilomitir waxaan ugu talagalnay howlgalka inaan nimanka wadanka kaga xureyno cadawga ummadda Soomaaliyeed howlgalkan mid waxa way aan istaagayna waa mid joogto ah waqti ma lahan magaalooyinka Qudus Barxaani Gabdhoole Shabac Moraari deegaanadaas ayaan wasaaka ciidamadu ay howlgal waxa weeyaan ay ka fuliyeen runtii cadawga si fiican bacagta loo mariyay oo waxa weeyaan ciidamadu way ka saareen meelihii cadawga ay joogeen way ka kala carareen si fiican baa dhulkii saaka waxa weeyaan mataqaanaa gacanta loo soo mariyay waxaan rajaynayaa insha Allah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland in insha Allah ay sii wadi doonaan howlgaladan ay wadaan oo lagu baacsanayo waxa weeyaan cadawga ummadda Soomaaliyeedna insha Allah waxaan rajaynaynaa in la shaqeyn doonaan waxa weeyaan ciidamada Soomaaliyeed ka xoreynaya cadawga ummadda Soomaaliyeed ciidanku si fiican bay waxa warbaahinta goostan shabakada wararka gaashaan wadani Soomaali TV waa naga inta